Carruurta Soomaalida ee ku dhalanaysa Jarmalka. Jarmalka waxaa jira sharci ah, kaas oo hooyadu ilmaha iska leedahay marka hooyadu iyo aabuhu aanay isku guursan sharciga Jarmalka oo aanay iska diiwaangelin xafiiska diiwaangelinta Standesamt. Badana lamanaha Soomaalida waxay isku guursadaan diiniyan taas oo qaadigu isku meheriyo, taas oo cadaymihii aqoonsigu madasha ay ka maqan yihiin xafiiska diiwaangelinta ee Jarmalku lamanahaas aanu aqoonsi guur siin karin. Laakiin waxaa jirta fursad uu ilmaha hooyada iyo aabuhu ku wada lahaan karaan. Marka aad rajaynaysan ilmo soo dhalanaya, u tag marka aad uurka leedahay xafiiska ka mas'uulka ee Jugendamt una sheeg in aad rabtid samaynta aqoonsiga aabbonimada Vaterschaft iyo caddaynta mas'uuliyadda ilmaha. Sorgerechtserklärung. Waa maxay micnaha labadan kalmadood? Vaterschaft, aqoonsiga aabanimada. Marka la codsanayo aqoonsiga aabanimada, abuhu waxa uu caddaynaya inuu ilmo dhalay iyo inuu u aqoonsan yahay ilmo ilmihiisii. Waxaa loo yeedhi doonaa turjumaan. Abaha ayaa saxiixi doona shakhsiyan waraaqdaas mas'uuliyadda ilmaha. Si oo abuhu ilmihiisa oo wax uu go'aamin karo sida dugsiga xanaanaynta carruurta, iskoolka, caafimaadkiisa, iyo waxa wajiib ah in la sameeyo aqoonsiga aabanimo. Waxaa loo yeedhi doonaa turjumaan. Waraaqda waa in ay saxeexaan hooyada iyo abuhuba. Haddii ayna hooyadu rabin in ay saxeexdo, abuhu mas'uuliyadda ilmahaas ma qaadi karo. Labadan warqadood si toos ah kuma heli doontaan. Waa inaad shakhsiyan oo tagta xafiiska dhalinyarada ee Jugendamt ood u sheegta in aad u leedahay ood rabtid in aad codsatid labadaas warqadood. Waa muhiim marka aad waraqahan dhalmada ka hor aad heshid, ilmahaasi waxa uu qaadan karaa magaca qoyskiisa ee ah magaca aabihii. Halkan waxaa jira kala duwanaansho gobol, ku xidhnaanta Ausländerbehörde iyo Standesamt way kala duwan tahay. Sababta ugu jiro sharcigan dalka Jarmalka. Waxaa la sameeyey sharcigan lamanaha sharciyan isku qaba iyo carruurtooda si la caawiyo carruurta meherka sharciyeysan ku dhalata. Marka ay dalkan Jarmalka lamanuhu ay ilmo ku dhalaan, waxaa ilmaha iska leh si toos ah labada walidood. Sharcigani waxa uu caawinaya qoyska. Sababtoo ah Jarmalku wuxuu rabaa in ay lamanuhu ay isguursadaan kabacdina carruur dhalaan. Sidoo kale waxaa caadi ah sida dhaqanka Soomaalida in oo ilmuhu dhasho gurka kabacdi. Sidoo kale markan waa in hooyada iyo abuhu loo ogolado ilmaha in ay wada koriyaan oo ay mas'uuliyadiisa wada qadan. Nasiib daro si toos ah kama shaqaynayso halkan. Maxaa yeelay waxaa maqan cadaymihii jinsiyadooda. Laakiin marka ay hooyadu ogashahay, abaha Soomaaliyeed si caadi ah ayuu ilmihiisa wax u go'aamin karaa. Halkan aad naga dawanayso waa deeqsame, fadlan nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid. Magacaygu waa Maryan Adan Xaaji.